وإلهي هذا الكيسية سبحانه وتعالى عد قرنيسا أفكان وكسود دقي هدي دقيسته وحشك الآن إنه الراد وين كريبيه ويدوى كتاب هداية وكتاب كان الله تعالى سبحانه وتعالى إن يدك كان كهانونا وحيار كان مركها القرآن كراد كبدنا وكليه هاي مجتمع هي سيدة وراديني سيدة أوجد أي واحد دور بدين إن أي سكوت ضيان إن يدك وديدان إن يلقيسته ودتك هذا وحما قربت جاية مالها سيرنا أنت الله ورورية هذه اللي أركب النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن أخرنيه إن لقبوقه وقاعدة يقاتنا هدي ويسوي هذلا إذا نكد عن هذلا بس عندي كلام أغلى ما يسوي حبوا سكرة تجيه حبوا لجيسين ما هي مركه وكإلهي سبحانه وتعالى قرآن كتب المامية له وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلهي بوحوا له سبحانه وتعالى كوي قالوا بيبا وحيد هذين قرآن كان هذا جيسيننا والغوا فيه كبوقة كقيلية هذا سيدا هذا لعلكم تغلبون وحلقيا باينا لعلكم تغلبون هنا كقوليستان أي وبدنتهاي بل أهل السير كو حبي سوريان رقبنا إني أنت رص قبطين حيرة ما لها سنكيا النظر بن حارث الأوريجري إنه وركو تركوتين سوريي وماشي ونبغو فريستا عليه الصلاة والسلام يسرع وحكا شيخ بيسنا يدعى نشيكوين كلا في عنبان هيا وبقردي بيرشيه iyo wuxoodii sheeka xariirtoodii oo dhan intuu soo ururiyay ayuu yiraahdo aniga Muhammad ka ayaga ba sheeka fiican waana ka Ilaahay ku tilmaamay bay mufassiriintu tilmaamaan wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith li yudilla an sabilillah ala kulli hal waxa soo dhamay waxay ahaayeen nooc la isugu dayay in looga hor yimaado diinta oo loo diido oo ka ugu yari uu yahay in la buuqo oo la qayliyo oo loo diido dadku inay diinta dhageystaan waxa kaloo bilaabmay isaguna nooc cadaadisa iddihaad in la cadaadiyo oo haddii wararkan badan ee waxba ay tari waayaan ficlan in gacanta la isula tago cadaadiskani markaa inuu lababa ku dhaco nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ku dhaco dadkii kale ee ahaa markaasi muslimiinta dadkii soo islaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu leenahay in badan isaga waa ka haybaysanayeen ama waa ka baqayeen ama qof sharaf loo agtooda mudnaan kale buu ahaan jiray haddana waxaa jiray un qaab la isugu dayayo in wax loo dhibo oo مثلا qisadaynu ka soo warramayna Abi Lahab ee waa beentii dawladda socday bada waa nooc dhibta kamida nin weyni daba socdo una wuxuu leeyahay inay tahay wuxuu sheegaba waa beentii ama waxba kama jiraan ama Jamil waxay sameeynaysaa Arwa bint Harb gabadhii la oran jiray waa gabadhii Abi Lahab yaduna waa tii heesaysay lahayd mudammamun abayna wa diinahu qalayna wa amruhu asayna weedhaynkaasi oo kala ah culimadu xadiidku wax ka yiraahdaan waxba ka ururaya marka la eego sanadada badan ay ku soo aroortay waxa ay tilmaamaysaa yani waa mudammam bay lahayd waa mid la ceebeeyay mid la heereedarteeyo aanu diidnay diintiisana waanu nacnay arrinkiisana waa caasinay saas bay ku dhawaaqaysay bal iyadoo waxa la socoto waa tii Abi Bakr u iimaneysay lahayd Abi Bakrow ee saaxiibka miyuuna soo caay qad haja yani ma gabay caayu saaxiibka noo soo tiriyay bay leedahay quraanka ay doonaysaa inay gabadh ka dhigto tabad yada Abi Lahab ki soo degay ayay diidantay inuu quraan yahay way rabtaa inay tiraahdo gabay hija iyo gabay caay inuu nabigu soo tiriyo kale Abi Bakrna wuxuu lahaa maya waana tuu nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalaam xadiiskii sahih al-Bukhari ku yaalay ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد بن نبي الله عليه الصلاة والسلام ميدان أركين بولها نبي سيدة إلهي يريد في عيدي ينعد شي قريشات وحي انت عايان بودي مذمم مثل إلهه iyo ay nacdalayaan aniguna Muhammad baan hay mudamam maahi kula caayay ama kula haydartay maahi kula mahadiyay baan hay ومحمد بان إلهي سبحانه وتعالى مقعيك كاسبه كدقي ان waxaad ka garan kartaa yani dibta la gaarsiiyay mesela nabiga calayhi salaatu wasalaam waynu tilmaami doonaa saxaabadii kalena waxyaabihii ku dhacay shaahidu ayaan mesela sheeko warinayo Abdullah ibn Mas'ud wuxuu leeyahay anagoo isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam tukanaya buu yiri Kacbada ku tukanaya ayaa waxa soo maray
jamca quraysha meesha joogay buu yidhi koox quraysh ka mid ah majliskooda fadhiday markaasaa mid ka midi yidhi qoladii wada hadlaysay war miyaydaan arkayn kan tusaya waxaa la yidhaahdaa ka waxaan ku hadlayaa wuxuu ahaa abujahl kumaa kacaya buu yidhi o reer bani fulan neefkii geela ay qasheen yaa soo qaadaya uurku jirtiisii calooshii iyo uurku jir wixii ay daadiyeen reer hebel neefkoodii yaa soo qaadaya buu yidhi oo dabeetana intuu ninkan ula yimaado madaxa ka saaraya buu weydiinaya mid baa kacay habarqaba ah sida axaadiista saxiixi tilmaamayso waa cuqba ibn abi mucayt ninkii la odhan jiray kaas baa kacay dabeetana wuxuu soo qaaday wixii neefkii la qalay khashinkii laga daadiyey ayuu soo qaatay wuxuu sugay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sujuuday ayuu halkaa garbaa iyo luquntiyo intaas buu ka soo saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dhaqdhaqaaqina sujuudtiisii buu iskaga jiray yani saxaabada ama nebiga calayhi salaatu wasalaam markaad taariikhdooda aragto waxaad arkaysa salaadu si ay ula weyneyd ama sujuudda ama ilaahay subxaana watacaala ay wejiga fooda u dhigaan walidalik baan adduun oo dhami hami badan ku haynin yani nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu xadiidkan saxiixi uu tilmaamayaa in isagoo sujuudsan ay dusha ka saareen uurku jir neef geeloo la qalay yani uurku jirtiisii inta lasoo qaday in dusha laga saaray maca dalika aanu waxba qurmuuna iyo waxa culusa iyo waxba toona aanu odhan sujuuddiisii uu iskaga sii jiray weliba xadiidku wuxuu tilmaamayaa nimankii quraysheed markaasaa qosol lala dhaco qoloba qolo dusha kaga dhacday qosol daraaddeed oo iyadoo lagu qosqoslayo nebiguna uu iska sujuudsan yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaa iyo warkii uu dabadda u baxay oo uu gaadhay faatimo inan yara yani warkii wuxuu gaadhay in nebiguna uu sujuudsanaado qurunkanina uu dusha ka saaraado qurayshina iska qosqosasho warkuu dabadaba masaajidka uga baxo ilaa uu guryihii iyo xaafadihii tago oo ay faatima markaasi ka soo cararto gurigii faatima u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo inan yara isagoo weli nebigu sidii u sujuudsan oo wixiina dusha ka saaran yihin faatima markaa ka riday oo intay qoladii carbeed odaydii carbeed kusoo jeesatay inan yar bay haydee waxoogaa caycayday oo maagmaagtay yani salaadu saas bay ula weyneyd walidalik baa taqaanin saxaabada qaar ka mid a xadiidkii abi daawuud oo kale inuu tilmaamaya axad saxaaba isagoo gaad ah in nin gaaleed usoo gabado gamuun ku dhuftay oo uu gamuunkii leebkii koowaad ku dhacay oo uu is yidhi war salaadaada waxba ha u goynin kaa gamuunkiisa iska wad uu salaadiisii iska waday oo gamuun labaad lagu dhuftay oo uu iska waday oo mid saddexaad uu ku dhacay ilaa dhiiggii isaga ka da-ay uu toosiyey kii dhulka jiifay axad saxaaba kale oo dhulka jiifa uu toosiyey oo uu leeyahy war maxaad ii kicin weyday inta waxaanoo nabari kugu dhacaye qofka mu'minkii inuu ilaahiis hortaagaa waa wax weyn marka uu garanaya alle subxaana wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii ka baxay ayuu habaaray allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh buu nebigu ku celceliyay calayhi salaatu wasalaam ilaw quraysh baan kugu ogahay ilaw quraysh baan kugu ogahay ilaw quraysh baan kugu ogahay buu ku celceliyey bale axaadiista saxiixi waxay tilmaamaysaa inuu odayadii quraysheed ee meesha joogay qaar ka mida markaasi carabaabay 7 ka mid ah allahuma calayka bisabcin inuu yidhi ilaw 7 kugu ogahay allahuma calayka bicamr ibnu hashaam wacutba bnu rabiica washayba bnu rabiica wاlwaliid ibnu cutba waumayata bnu lkhalf wacuqba bn abi mucayd wacamaar ibnu lwaliid 7daas buu nebigu habaaray baa la yidhahdaa cabdillaahi bnu mascuud baa wuxuu leeyahy ilaahay baan ku dhaartee waxaan arkay buu yihi maalintii beder baktigii gaaladee goofka lagu gurayey 7diiba iyagoo ku jira buu leeyahy kuwa maalintaa nebigu habaaraya calayhi salaatu wasalaam awlaa ilaahay kuwaasaan kugu ogahay cabdillaahi bnu mascuud oo shaahidu cayaano ninka qisada warinaya ah marka horena lahaa waan arkayay nebiga markii waxaan la saarayay waxna kamuu celin karino isagu mustadcafiintu ka mid ahaa yani isba lafiisu qaati la taagnaa oo waxba nebiga kama dhicin karaynin markay odayada quraysheed waxaan samaynayeen walidalik maalinta horena shaahidu cayaan buu ahaa markii nebiga waxa lagu samaynayey maalinta dambena shaahidu cayaan buu ahaa wuu joogay markii goofka lagu gurayey maydkoodii kuwa kane 7daba beder baa lagu dilay riwaayaadkaasi saxiixa ahi waxay tilmaamayaan ninkii ku taxriidiyey nebiga waxa kan la saaraa inuu ahaa abijahl kii soo qaaday waxa kanina inuu ahaa cuqba ibnu abi mucayd inuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qurayshi markay xoog uga hor timi wuu habaaray xataa
allahuma acinnii calayhim bisabcin ka sabci yuusuf ayuu ku habaarayay ilaahayow waxaan ku weydiisanaya inaad iigu gargaarto toddobadii yuusuf oo kalea yacni toddobadii sannadood ee abaarta ahayd ee nebi yuusuf qoomkiisa lagu itixaamoo kale ilaah kuwan abaar ku itixaam buu leeyahy dabeetana abaartii baa qabatay waxay gaadheen xad ay cunaan baktiga iyo saamaha la cuno markii wax la cuno kale la waayey oo cirku uu noqdo baa la yidhaahdaa dukhaan qiiq gaajo daraaddeed abaare ay muuqato oo uu yimaado abu sufyaan ninkii la odhan jiray baa la yidhi baa nebiga u yimi calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi innaka ta'muru biطaacati illahi wa bisilati raxm maxamedow dadka waxaad faraysaa ilaahay aacadiisa waxaad kaloo faraysaa qaraaba xidhiidhin tolkaana maanta gaaja halaagaysa oo balaayada tan baa haysataa ilaahay uu bari ilaahay waxaan inu ka qaaday yani ilahay way rumayn doonaan oo kale macno ah qur-aanku xaadiثada waa ka sugaya ee fartaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin ilaa qowlihi caa'iduun laga gaadhayo markuu nebigu alle u baryeyna gaalnimadoodii bay dib halkii uga sii wadeenoo waxba may raacin qaaluu rabbana kshif cana alcadaaba inaa mu'minuun bay lahaayeen laakiin may dhicine sidoodii ayay kusii wadeen nebigana calayhi salaatu wasalaam sidii ayay usii beeninayeen mushrikiintaasi waxay ku gaadhay xad ay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka akrinaya markay maqlaan ay caayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii bukhaari iyo muslimba soo saaray oo kale ay ilaahay caayaan oo qur-aanka caayaan oo cid walba maagaan dabeetana uu soo dego qur-aan ilaahay leeyahy walaa tajhar bisalaatika walaa tukhafit biha wabtagii bayna dalika sabiila alla leeyahy subxaana wa tacaala kor ha u qaadin salaada markaad qur-aanka akhriyayso hoosna ha u dhigin si saxaabadaadan iyo cidda kula joogta ay u maqasho wabtagii bayna dalika sabiila yani nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi diinta kor u dhawaaq inta badan wuxuu isku dayi jiray inuu ku tukado masjid ulxaraamka oo markaasi asnaamtoodii iyana ay u taallo majlisna oo ay day fadhiistaan oo isugu wada yimaadaan qurayshi in badan waxay isku dayday inay nebiga calayhi salaatu wasalaam cadaadis oo dhan saarto nooc walba isugu geyso xataa ay ka gaadho abujahal oo kale intuu dhaarto inuu yidhaahdo war yaa qurayshay maalin walba maxamed ba intuu halkan yimaadaabuu wejiga ku boodhaystaa isagoo ujeeda yani sujuuddaanu doonayn inuu yidhahdo ilaahay sujuuda markaasuu leeyay maalin walba ma intuu maxamed halkan yimaado ayuu yacfar moxamed wajha bayna adhurikum barhtankiina buu maalin kasta wejiga ku boodhaystaa haa bay idhaahdeen wallaata waalcuza buu yidhi lain ra'aytuhu yafcalu dalik laat'anna calaa raqabati aw laacfiranna wajhahu fi turaab laata iyo cuzaan ku dhaartee buu leeyay waa labadiisii sanamada tan laata iyo cuzaan ku dhaartee haddaan arko mar dambe isagoo meelahaasi foorfoorsanaya halkaa meelaan ahay raqabadda inaan iskaga taagin buu leeyahy markaasuu wuxuu yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo tukanaya markaasuu isku dayay inuu isku taago laakiin ninkii hanjabaye ee qurayshi caynkaa u lahaaye lalahaa bal wuxuu sameeye ha la arko markuu nebiga kusoo dhawaaday calayhi salaatu wasalaam ayuunbaa la arkay isagoo dib u guranayo dib u cararaya war maxaa kugu dhacay bay yidhaahdeen wuxuu yihi ina baynii wa baynahu lakhandaqan min naar wahawlan waajnixa waar markaan ku dhawaaday uun ayuunbaaban arkay buuhi god naareed oo ka sokeeya iyo holac iyo beliya baas meesha ka baxaysa dabeetana dib baan usoo cararay buu leeyahy waana tuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam low danaa minii lakhtatafathu lmalaa'ikatu cudwa cudwa hadduu ii soo dhowaan lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixu muslim ku yaala hadduu ii soo dhowaan lahaa malaa'igtaa kala boobi lahayd buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qisada tanna qur-aanku waa ka qoray ee tilmaamaya kalaa ina alinsaana layadغى an ra'aahu اstagنى ina ilىa rabbika rujca ara'ayta aladii yanhى cabda ida صalى ara'ayta in kana calى اlhuda waamara bالtaqوى ara'ayta in kadaba watawalى ilahay uu ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala bini aadamku markuu dhergo inuu qooq iyo kibirka bilaabo alle subxaana wa tacaala uu tilmaamaya ka warrama midkan u diidaya addoon ilaahay u tukanaya yani waxba insaana layadغى an ra'aahu اstagنى ina ilىa rabbika rujca ara'ayta aladii yanhى cabda ida صalى ara'ayta in kana calى اlhuda waamara bالtaqوى ara'ayta in kadaba watawalى ilahay uu ku tilmaamaya subxaana wa tacaala bini aadamku markuu dhergo inuu qooq iyo kibirka bilaabo alle subxaana wa tacaala uu tilmaamaya ka warrama midkan u diidaya addoon ilaahay u tukanaya
yani waxba kale uu sameeyey ma jirta ilaahay buu tukaday taas baa cadho gelisay oo dhib ku noqotay baa alla leeyahy subxaana wa tacaala ilaa iyo suuradda dhammaadkeeda ilaahay ka gaadhayo falyadcu naadiya sanadcu zabaniya alla ku tilmaamayo subxaana wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga ay ku sameeyeen ama dhibta ay u geysteen ama waxyaaba ay u tilmaameen runtii aad bay u tiro badnayd xad bay gaarsiisantahay maalan curwata bnu zubayr ayaa wuxuu leeyahay curwata bnu zubayr ayaa wuxuu weydiiyey cabdillaahi bnu camr bn اlcaas akhbirnii biashaddi ma sanaca almushrikuuna birasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam war waxaad iiga warantaa buu yidhi wixii ugu adkaaya ay mushrikiintu nebiga ku samaysay calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ku yaalaa bukhaari wuxuu yidhi isagoo nebigu tukanaya calayhi salaatu wasalaam kacbada fanaageeda ama banaankeeda isagoo ku tukanaya ayuu cuqba bnu abi mucayd soo qaabilay buu yidhi cuqba bnu abi mucayd waa kii hore ee markii horena saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam uuska saarayey iyo uurku jirta dabeetana nebiga ayuu intuu garabka qabtay buu go-i ku wareejiyey oo ku ciijiyey buu leeyay ku baktiin gaadhay isagoo nebiguba siriiri gaadhay ayuu abibakar soo gaadhay buu leey oo ka furfuray isagoo le ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah waqad ja'akum bilbayinaati min rabbikum waa aayaadkaasina kuwa alla kaga warramayo subxaana wa tacaala camar ibnu caas wuxuu leeyahay markaas aabbihii ayaa yani cabdillahi bnu camar baa sheekada u sheegaya curwata bnu zubayr dabeetana cabdillahi bnu camr ibnu caas aabihii buu kale qisada ka warinaya wuxuu leeyahy camar ibnu caas shaahidu cayaan buu lilxaaditha u ahaa yani waa joogay markii ay waxa ka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu samaynayey calaa kulli xaal qurayshi intii ay dhibi kartaba way sugaysay inay nebiga dhibto calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin aada u tiro badanna way isku wada dayeen inay u geystaan bale wax kastaba way isku dayeen waataynu xagga dambaynu ku gaadhi doonaaye ilaa ay isku dayeen inay dilaan markaasi ama ay kow kaga siiyaan marar badan baanay xataa dilka isku dayeen markanoo kudha may hayn marar badan ayay isku dayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay dilaan waxaanad garan kartaa mararka qaarkood maalan xadiidka la warinayo ibnu cabaas waa kale quraysh baa isu timi dabeetana waxay isku dhaarsadeen laate iyo cuze iyo manaat ayay isku dhaarsadeen maxamed haddaynu aragno inaynu maanta dillo dabeetana faatima nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam oo warkii maqashay oo ooyeysa oo leh haaulaai ilmala min qawmika fi lxajr qad tacaahaduu an low qad ra'awka qaamuu ilayka faqataluuk ilaahay rasuulkiisiiyow kooxdan quraysh madaxyo waaweynteeda halkan fadhida waxay isku dhaarsadeen oo ku ballameen hadday ku arkaan inay ku dilaan si dhiiggaagu dadka ugu kala firdho markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa bunaya adnii waduu'a weyse iisoo dhawee buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu weysaystay dabeetana masaajidkuu galay markii ay arkeen nimankii dheeranaya lahaa waa dilaynaa markay arkeen bay codka hoos u wada dhigeen oo majliskii ayar xabad xabad uga siibteen markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam intuu soo qaabilay dhammaantood nimankii oo aamusan oo hoos u foorfoorana ayuu ciid intuu qaaday buu madaxa kaga shushubay isagoo le shaahat ilwujuuh xadiidkani waxau tilmaamaya musnadu imaamu axmed buu ku yaala isagoo laba sanad oo saxiixa kusoo aroray sidoo akram diyaa ilcumari sheekha la yidhahda kitaabkiisana aynu gacanta ku hayno ku qorayo waxa uu markaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam ku saydhsaydhay buu yihi ciiddii ma jirta buu yihi maalintaa ciiddii u saydhay mid uu ku saydhay ilaa iyo wuxuu ku jiray maalintii beder kuwii la laayey qisada tan ciid ku saydhka dhowr goor buu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam markanina waa ka mid markaas waxaad ka garan kartaa dhibtay nebiga gaadhsiinayeen xad nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiinayo ama sidaa nebiga loo dhibaya calayhi salaatu wasalaam uu nebigu ka yidhi laqad ukiftu fi llahi caza wajala wamaa yukhaafu axad walaqad udiitu fi llahi wamaa yudaa axad walaqad atat calaya halaaثuuna min bayni yowmi walayla wamaa lii walaa layla طacaamu yaakuluhu duu kabad ilaa shayun yuwaarihi ibط bilaal wuxuu nebigu ku tilmaamaya yani dhibta iyo mashaakilka qabsaday waa lay bajiyey ilaahay dartii baa lay maagay oo laygu digay si aan cidna loo dilin buu leeyahy waa lay dhibay si aan cidna loo dhibin waxay soo martay buu leeyahay 30 caana maal yani 30 habeen iyo maalin isugu jira oo aan xataa wax raashinana haysan wax yaroo kilinkilada bilaal in qaada in leeg yani waxaan waxba ka macno ahayn aan intaasoo dhan haystay buu tilmaamaya
waxaad ka garan kartaa markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka mida reer banu hashim oo ka mida dadkii quraysh ay maamuusi jirtay oo nin weyna oo odayadii quraysh ay joogaan oo abi aalib oo ilaalinaya u jooga haddii dhibta la gaadhsiinaya isaga ay nooca kan ahayd waxaad qiyaasi kartaa markii dadka kale mustadcafiin tahay ee islaamay iyaga sida loo galay yacni iyaga runtii wax laga sheegaaba iska yar markaas haddaynu dhowr xadiid ka soo qaadano axaadiistaa saxday cabdillaahi bnu mascuud baa wuxuu leeyahy oo shaahidu cayaanaha islaamka markii korka loo qaatay buu yihi awalu man adhara islaamahu sabca buu leeyahy dadkii ugu horreeyey islaamkooda muujiya waxaa ka mid ahaa buu leeyahy 7 maaha dadkii ugu hor islaamay waa dadkii islaamnimadooda muujiya 7 ka mid ahaa buu leeyahy 7daasi waxay ahaayeen buu yihi ilaahay rasuulkiisii iyo abubakar iyo camaar waa camaar ibnu yaasir waa wiil dhalinyaro ah oo qoys xoolale ka dhashay ayuu ahaa markaa oo reerkii intay dayriyeen dhibaatoo dhame jirifi dushiisa ay fushay baa la yidhahdaa camaar ibnu yaasir maaha muscab ibnu camaar weeya ka reerka qoyska xoolaale ka dhashay camaar ibnu yaasir iyo hooyadii iyo aabihiiba waa kuwa iyaga la wada cadaabayay hooyadiina waa sumaya aabihiina waa yaasir hooyadii iyo aabihii iyaga sidii loo tacdiibaya ku dhinteenbe camaar buu leeyahy iyo hooyadii oo sumaya ah iyo suhayb iyo bilaal iyo miqdaad buu leeyahy waa 7dii ugu horreeyey islaamnimada muujistay laakiin wuxuu leeyahay ibnu mascuud rasuulka isaga adeerkii baa wax ka celinayay abi aalibah ababakarna nin odayo oo tolle buu ahaa oo qoomkiisaa wax ka rabayay amaa kooxdan kale buu leeyay iyagu mustadcafiin bay ahaayeen dabeetana waxaa la dhadhansiiyey buu leeyahy dhib dhammaanteed baa la dhadhansiiyey waxse u adkaysi badnaa un buu leeyahy ninka la yidhaahdo bilaal oo naftiisu ay ilaahay agtiisa ugu fududaatay oo u arkay yacni naftiisa inuu wax kasta u ogolaado wax kasta ha lagu sameeye inaanu marnaba erey xumi ka soo bixin xad bay gaadhsiiyeen buu leeyahy bilaal inta hoggaan lagu xidho caruurta loo dhiibo oo shicaabu maka la mariyo marka la tumee si kasta loo jilciyo oo haddana aan afkiisa wax kale ka soo bixin buu leeyahy inuu yidhaahdo axad mooyaane abibakar baana markii dambe bilaal sida xadiista saxiixi tilmaamayso iyagoo dhibay oo nafta isugu keenay oo dhagax saara oo wax kasta ku sameeyey ayuu abubakar u yimi oo yidhi waar iga gada addoonkan anigu idinka iibsado iyagoo khaatiba ka taagan bay idhahdeen waa kaa gadaynaa keen lacagta dabeetana abubakar bay lacagta ka qaateen abubakar baa markaa intuu iibsaday xoreeyey oo sii daayey curwa ibnu zubayr oo imaamu ahli lmagaaziya ayaa wuxuu ku tilmaamayaa abibakar buu yidhi wuxuu xoreeyey 7 ka mida kuwii ilaahay dartii loo cadaabay waa yani xadiid mursalnimo saxiix ku ah 7 ka mid ah inkastoo xaakim iyo dahabiba ay tasxiixiyeen iyaguna 7 ka mida buu xoreeyey buu leeyahay caamir ibnu fuhayra ninkii la odhan jiray waa ninkan shalay lahaa ma xasuusta inuu addoon ahaa laakiin waxaa cad inuu addoon ahaa iyo bilaal iyo nudayra gabadhii la odhan jiray umu cubays nahdiya iyo walaasheed iyo jaariya min bani camar ibni mu'mala intaaba waxa xoreeyey baa la yidhahdaa abibakr sidiiq mustadcafiintaasi sidii loo cadaabayay maruu wax ka tilmaamayey asxaabulmagaazi ay soo arooriyaan waxa uu sheegaya yacni dhib aada u tiro badan dhammaantood in la wada mariyey qaarkood intay si loo cadaabay indhaha ka dhaceen ay yidhaahdaan indhahana laatay iyo cuza kaa riday ay tidhi ilaahay mooyaane cid kaloo iga rida ma jirto oo indhaha alla u soo celiyay laakiin waa masaajiru siira say sheegaan sixadeeda ma hubno waxaa ka mid a yani mustadcafiintaasi intooda badan waxaa xoreynayun abibakar sida xadiidkii saxiixa uu tilmaamayo oo abibakar isnaad xasana xadiid ku soo arooray baa waxa uu sheegaya abibakar markuu dadkii addoomaha ee muslimiinta ee la istidcaafsaday tirada badnaa markuu xoreeyey ayaa aabihii la hadlay abu quxaafa aabihii baa wuxuu ku yihi low anaka actaqta rijaala jaldan yamnacuunak war kollayba haddaad wax xoreynayso maad rag xoog waaweyn oo wax kaa raba oo haatan ciidan oo ku caawiya maad kuwa xoraysid buu ku yidhi odaygu markaa weli ma islaamin laakiin wuxuu leeyahy abibakarow haddaad kollayba lacagtaadii bixinayso o iskharash garaynayso aad cid xoreynayso maad xoraysid niman xoog waaweyn oo ugu yaraan dee wax kaa rabi kara abibakar baa markaa wuxuu yidhi wax kale ugama dan lihi xoog iyo manco kama doonayo inay wax iga rabaane ilaahay wejigii baan u xoraynayaa buu leeyahy waa asbaabay kusoo degtay bay culammadu yidhaahdaan
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آيات laga gaadhay وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يعني inuu ilaahay dartii un dadkan u xoreynayay aanu dan kale ka lahayn dadkan mustadcafiinta ama laga tunjileecsaday sida loo garaacay Camaar ibn Yaasir oo kale riwaayaat xadiiثiyan ana saxiix laakiin culamaai taariikh ay yidhahdaan taariikhdaasi waa sugantay iyo mufasiriintuna ay ka warramaan asbaab nuzuulka ay ku sheegaan waata Camaar la tilmaamayo sidii loo dhibayey in la gaadhsiiyey inuu nebiga wax ka sheego calayhi salaatu wasalaam dabeetana intuu wax ka sheegay ay sii daayeen kadibna uu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo cudur daaranayo ooyayo le waxbaa iga soo baxay uu nebiguna ku lahaa aayaadkani marka ay soo degeen ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inun biliimaan aayaadkii tilmaamayey ee sheegaya inaan gaalnimada loo qabsanaynin qofka dee la dilay ee la tumee lagu qasbay inuu ku dhawaaqo erayada uu ku dhawaaqay inaan loo qabsanin mar haddii qalbigiisa iimaanku uu ku sugan yahay oo waxa kan qasab lagaga keenay waxaad ka garan kartaa dhibta muslimiinta la gaadhsiiyey raggii la dhibi jiray waxaa ka mid ahaa oo kale maalan khabaab ibnu larat waana ka markii dhibtu ka badatay nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ele waxaan u imi nebiga oo burdihiisii go-iisii yacni shaqalaystay ama mutawasid ku ah kacbada hadhkeeda markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuula allahi alaa tadcu lana ilaahay rasuulkiisiiyo maad alla noo baridid waad aragtaa waxaan haystee dhibtanna haysata waad aragtaaye maad ilaahay noo baridid baan ku idhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo fadhiistay buu yidhi isagoo wejigu casaaday yani isagoo cadhaysan dadka midabkeenan madow dee dadkan aan lahayn wejigooda inta badan waxaa ka muuqata qofku hadduu faraxsan yahay iyo hadduu cadhaysay markuu cadhoodaan wejigu aad buu u casaadaa dhiiggan kusoo urura oo waa uu qofku muuqanaya wuxuu kacay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo soo fadhiistay isagoo aad wejigu u casaaday dabeetana wuxuu igu yidhi buu yidhi laqad kaana man qablakum layamshidu bimashaati alxadiid maa duuna cidaamihi min laxmin aw casab wuxuu nebigu uga sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam ummadihii ka horreeyey iyaga sida islaamka u haysteen iyo cadaadiskii iyo dakdi iyo cidhirigii la saaray markaasuu wuxuu nebigu ku yidhi war ummadihii idinka idinka horreeyey diintooda ayay haysteen iyadoo midkood buu nebigu leeyahay gafeedh bira lafta iyo diirka iyo hilibka lagu kala saaro yani qofka oo intaa la xidho dabeetana fargeeto yaro bira inta loo qaato lagu gooyo ilaa iyo lafaha lagu soo saarayo lagu diirayo hilibkiisa waxaasoo lagu samaynayay buu nebigu yidhi maa yasrifuhu dalika can diini diintiisa kamay celinayn bale nebigu qisada uu sii wada wuxuu yihi qaarkoodna wuxuu tilmaamay nebigu inta god loo qodo oo kale in halkaa mishaar laga saarayay madaxa bartankiisa oo sida looxa loo soo mishaaraynayey ilaa iyo laba u kala dhaco qofku inta xaggan laga soo mishaareeyo dabeetana laba loo kala gooyo sidan hilibluhu hilibka u kala gooyo kale maa yasrifuhu dalika can diinihi buu nebigu leeyahy dadka sidaa loo cadaadinayey waxaasi diintooda marnaba kamay celinaynin markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada tan u bushaaraynaya walayatamanna allahu hada almr xataa yasiira araakibu min sancaa ilaa xadramowt maa yakhaafu ila allah allaan ku dhaartee buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay diintan wuu dhammaystiri doonaa ilaa iyo ay gaadho ninka socotada ah ee raakibka ahi ee sanco ka yimi ee xadramowt ka socda aanu cidna ka biqi doonin ilaahay mooyaane subxaana watacaala yani amni intuu dhaco waa dhul buu markaa tilmaamaya yani ama qowlaysato ama qutaacu ariiq ama dad badanoo wax dhib ay jirayeen inuu ninkaasi intaa socon doono isagoo aan cidna ka cabsadan iyagu makay ku aamin la'yihin nebiguna wuxuu tilmaamaya socdaalaynta la galo inaan haddana wax dhiba aan la arki doonin laakiin wax waliba waxay u baahan yihiin maxay sabir bay u baahan yihin noloshu ilahay dadka uu itixaama waxaana lagu itixaamaa biqadri iimaanihim dadka iimaankoodu intuu leegyahay walidalik buu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dadka waxa uu u imtixaan badan buu yihi ambiyada uma alamhalu falamhal dabeetana sida loogu kala dhowyaa loo kala imtixaan badan yihi imtixaankaasina waa dadka ilaahay wuxuu ku kala saaro subxaana watacaala marka imtixaanka iyo dhibtu timaado ayaa dadku kala muuqdaan kiisa deeqsiga iyo kiisa fiican iyo kiisa adkaysi badan le iyo ka waxaanay dhab ka ahaayeen iyo kii dadka iska dhinac socday uun markaas bay dadku kala muuqdaan idan ibtilaagu waa waxa dadka lagu kala saaro khabaab ibnularadka aynu sheegaynay nebiga sidan ugu yimi caynkan u sheegayey wuxuu ahaa nin muslima oo saxaabiya oo farsamo yaqaan ah wuxuu ahaa oo dadkan biraha wax ka sameeya farsamo yaqaanka ah ilaa xad bay gaadhay yani dhibta kale lagu hayo daaye xataa wax yar u shaqaystan ay ka qaadaan ama ay ka dafiraan waa ka caas ibnu wail
odayadii quraysheed ee sufahada ahaa ka mid ah quraysh odayadoodii ugu waaweynaabu ka mid yihi diin ahaan laakiin dadka ugu foga ayaa intuu seef uu tumay oo uu sameeyey ayaa waxoogaa xoolaabu ku yeeshay xoolihii buu yidhi si ku siin maayo buu ku yidhi ilaa aad maxamed ka gaalowdo mooyaane xoolahaga wuxun baad helaysaa haddaad maxamed ka gaalowdo khabaabna wuxuu ku yidhi maxamed ka gaaloobi maayo ilaa yaad dhibato oo dabeetana weliba lagu soo saaro oo yani wuxuu tilmaamay inaan suurtagal ahayn inuu ka gaaloobo caas ibnu wailo markaa bacthu bacda almowtka ku jeesjeesaya wuxuu yidhi haddii dhimashaduba jirto ilaa adigu adduunka wax xaqiirkaasaad ku haydaan waxba haysane haddii dhimashaduba jirto laysu soo bixinayo aakhirana anigoo sidii kusoo dejinayeen afara'ayta alladii kafara biaayaatina waqaal lauutayana maala wawalada yani aakhire marka la yimaadana xoolaa la iman doonaa waa kale aطaalic ala hayb am itakada cinda araxmaani cahda waa ka alla ku tilmaamay subxaana watacaala ma haybkuu sii daalacday mise ilaahay baa u ballan qaaday in waxaan la helayo yani xagguu ka keenay inuu aakhiro xoola la iman doono iyo wiilal inuu la iman doono xaggay uga timi ba alla leeyahy subxaana watacaala idan waxaan leenahay dadkii muslimiinta mustadcafiinta dulmigu wuxuu gaadhay xadkaasi xoola laga qaado ee jidhkooda la gubo ee wax walba lagu sameeyo ee si kasta loo dulmiyo xataa intii wax iska yaro dhicin kari lahaydna midhmidhka shabaabka ama yaro xoogan ee isbiimayn lahaana waa loo diiday oo ilaahay baa qur-aan soo dejiyey le wax dagaal ha qaadina alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiikum waaqiimu salaa waa ka aayaadka alla kaga warramayo yani raggii islaamay rag dhalinyaraaba iskaga jiro xoogan oo malaa maalinta hore dee dagdagaalami kari lahaa marka la isugu yimaado dambe haba dambayse maala cabdiraxmaan ibnu cawf iyo raggaasi oo kale laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray waktiga kan inaan wax dagaala la qaadin lixikma dhibtu markay kusii badatay muslimiintii waa loo diiday inay dagaalamaan caaisha waxay leedahay nebiga hijrada la weydiiyey bay tiri markaasaa waxa uu nebigu yidhi markaa caaisha hadlayso oo nebiga wax ka warinaysa calayhi salaatu wasalaam caaisho hijrada la weydiiye hadlaysa caaisha waxay leedahay laa hijrata alyawm kana almu'minuuna yafiru axaduhum bidiinihi ila allahi tacala wa ilaa rasuulihi makhaafa an yuftana calayh faama alyawm faqad adhara allahu lislaam walyawma yucbadu rabbah xayu yashaa yacbudu rabba xayu shaa caaisha waxay leedahay hijra maanta ma jirto inta hijro la weydiiyey yani waa mawquuf cala caaisha waxay leedahay mu'miniintu waxay ahaan jireen kuwo diintooda lagu fitneeyo lagu itixaamo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam yani hijrada u ogolaan jiray xad ay ka cabsanayaan in diinta lagaga saaro sida loogu wado maanta bay leedahay ilahay baa islaamnimadii kor yeelay oo qofku meeshuu doono buu ilahay ku caabudaya xagguu uhijroodaa bay leedahay cabdillaahi ibnu cumarna waa ka tilmaamayey islaamku buu yihi qaliil bu ah xadiidkii bukhaari kana alislaamu qaliila fakana arajulu yuftanu fii diinih ima qataluuh waima yucadibuuh xataa kahura alislaamu falam takun fitna buu lahaa yani waxay ahaan jirtay buu leeyahy ninku intuu islaamo in diintiisa laga fitneeyo ama la dilo ama la cadaabo ilaa iyo islaamku uu batay buu leeyahy oo dabeetana fitnadaasi la waayey dadka diintooda laga fitnaynayay waktigan hore ee muslimiinta dhibaatada ku badanayd ilaahi subxaana watacaala wuxuu u carbinayay dadka kan inay noqdaan dadka islaamka qaadi lahaa dad aan naftooda u dagaalamin iyo waa lay dhibay qura ee u dagaalamo un mabaadi nufuustuna ay la yartay iyo xamiyada iyo cadhada iyo laakiin waxa la weyn uu noqdo inay diintooda u diriraan faqad walidaalika baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu waktiga hore ku tarbiyeeyey inay nafta xakameeyaan oo sabirka ay bartaan oo cibaadada ay badsadaan waxaa la baray inay habeenkii in badan ilaahay ku xidhmaan qofku kullamaa ilaahay xadhigiisa uu xoog usii qabsado waa kullamaa dulqaadkiisa iyo adaygiisa iyo ninnimadiisu ay sii badato walidaalika baa ilaahay subxaana watacaala tawlkay sidan ku jireen waxaa la faray cibaadadoodu inay sida caadigaa ka badato yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلهي وحفري سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام إنه هبينكي كعه أو إنتين لا كعه هبينك نسكي تاجنو أما كبكر نبال يدي نص أما كيرا يريه انتم وقوبا نانتي لكن هبينكي كع
isagiyo saxaabadiisii waanay kaceen ilaa iyo caguhu ay barareen siday ilaahay ugu taagnaayeen subxaana wa tacaala iyagoo ilaahay raalli ahaanshihiisa raadinaya kuna tala jiray inay fuliyaan awaamirta alle subxaana wa tacaala markii ay rag training qaatay noqdeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka dambe isla suuradda soo dejiyey oo loo fudaydinayo faqra'uu maa tayasara min alqur'aan alaan ilaahay u tilmaamaya in laydin ogaaday sidaa uu ilaahay u rumaysantihiin u taageersantihiin ugu caabudaysaane hadda wixii qur-aanka idin fududaada akhriya alla soo dejiyey subxaana wa tacaala idan cibaadaadkaa la faray waxba ha dagaalamina la yidhi marka kan laakiin badiil baa la siiyey ah inay xadhigga alle subxaana wa tacaala ay xejistaan salaad iyo cibaadad wastaciinuu bisabri wasalaa baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya kaalmaysta sabr iyo salaad yani sabr iyo salaadu waa waxyaabaha ugu waaweynee qofka mu'minkaa shadaa'idda ka saara saa daraaddeed baa waxay alla tilmaamay inay cibaadada badsadaan waxaa kaloo la tilmaamaa qurayshi dhan walba way isku daysay taarra inay isku daydo inay nebiga mufaawado la galaan mar inay isku dayaan inay abi aalib ka ashtakeeyaan mar inay isku dayaan in la cadaadiyo la tumo bal si walba ha lagu dayo mar in la isku dayo iqraa in manaasib iyo wax loo sheegay iyo hanti iyo waxbaa lagu siinaya rabshadun jooji wax walba waa lagu dayay maala mufaawadaadkaas haddaynu soo qaadano riwaaya albani uu saxiixinayo silsiladiisa caqiil ibn abi aalib ayaa wuxuu ka warramaya qiso isagu shaahidu cayaan ahaayo joogay wuxuu leey quraysh baa abi aalib u timi yani abi aalib iyo imaanshihiisa qisas badan baa laga wariya oo saaxib raxiiq almakhtuum dhowr qiso ayuu warinaya inkastoo ibnu hishaam uu tiiriya aanu takhriijinin ama aanu si fiican sanadkeeda inoogu muujin laakiin tan qisadan albani uu tasxiixinayaan eego akram diyaal umari kitaabkiisa ilaahay khayra siiye uu ka fiican yahay kutubta mucaasiriinta sanadadan dambe la qoray waayo wuxuu isku dayay inuu sanadada wax uu ururinayo dhan inuu takhriijiyo ama uu isku dayo sixaadeedu intay leegtay inuu cadayn karo caqiil ibn abi aalib oo xaadisadan dhacdadan joogay baa wuxuu leeyahay quraysh baa abi aalib u timi waxay ku yidhaahdeen markaa ina ibnu akhiika hada qad aadaana fii naadina wa masjidina fanhahu cana inankan bay yidhaahdeen aad adeerka u tahay waa nagu dhibay golayaashaanu fadhiisanaynay iyo masaajidkiiba ee nagala hadal yuu noogu imanina yuu nagu dhibine golayaasha iyo masaajidka yuu naga imanoo na dhibine nagala hadal caqiil wuxuu leeyahay aabbaa ila hadlay markaas buu leeyahay caqiil waa ina abi aalib oo yidhi yaa caqiil inaliq faatinii bimuxamed war bal orod oo ii doon oo maxamed ii keen iigu yeedh maxamed buu yidhi sala allahu alayh waalihi wasalam waan baxay buu yidhi gurigii yaraa baan ka baxay dabeetana waan tegey buu leeyahy waan keenay buu yihi goor duhura oo cadceeddu kulushahay ayaan soo kaxeeyey buu yidhi oo nebiga calayh salaatu wasalaam u keenay markii uu yimi buu abi aalib wuxuu yidhi nebigu la hadlaya ina bani camik haulaai qad zacmuu anaka tu'diihim fii naadihim wa masjidihim faintaha can adaahum abi aalib wuxuu yidhi adeeradaa ilma adeeradaa waxay sheeganayaan buu yidhi inaad dhibtay oo masaajidda iyo golayaashoodiiba ku dhibtay ee dhibta ka dah saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu markaasi samada eegay buu wuxuu yidhi atarawna hada shams cadceeddaasi ma aragtaan haa baa lagu yidhi markaa famaa ana biaqdar calaa an adaca dalika minkum calaa an tastashciluu minha shucla ugama awood badni buu yidhi inaan waxaan sheegaya ka tago sidaydan u awoodin inay cadceedda dab ka soo shidataan yani cadceedda inay dab ka soo shitaan mi suurtageli waa maya sidaydan taa u awoodin ayaanan ana u awoodin buu leeya inaan diinta dhaafo ee waan wadaya anigu dacwaddii alla i faray abu aalib baa markaa wuxuu yidhi wallahi ma kadabna ibna akhi farjicuu abi aalib waa diiday markaasi in uu maa kadabana ibnu akhi been inooma sheegin buu yidhi ninankaan adeerka u ahay ee iska taga yani wuxuu sheegaya waa run buu leeyahy markaa wax kaloo la yidhahdaa ma jirte mar hadduu yidhi de joojin maayo dhaafo dhaafa buu ku yidhi sidaa igu daaya nimankii cadhadoodii waa sii tiro badata quraysh ahayd iyo kolba waxay isku dayayeen dawrna cadhay ku dayayeen iyo xoog in lagu dayo oo kuwa qurunka saaraya ama lahaa madaxaanu kaga joogsanaynaa mar ashtaka isku dayayaan ya abi aalib in loo tago la yidhaahda naga qabo
mar waxay isku dayeen xataa inay isaga iqraa ku sameeyaan inkastoo xadiidka iqraaga sanadadiisu aanay xoog badnayn sheekhan akram diyaal cumar inuu leeyahay waa daciif laakiin albani fi takhriijihi fiqh sira lilghazali markuu takhriijinayo waxaan rajaynayaa inuu taxsiininayo uu leeyahay xasan al-ghayri waxbuu ka ururinaya waxay sheegaysaa riwaayadkaas iyaguna inay xataa ay gaadheen kolba intay nabiga cid u soo diraan inay yidhahdaan bal la soo hadal cutba ibn rabiico kale inta loo soo diray in la yidhi bal orod u tag wakaasoo wuxuun maanta waxaynu ku heshiina bal ninkan ula tag oo cutba uu yimi nabiga isagoo weydiisanayo le warniyow waxaanaad doonaysa hadday madaxtinimo tahay inaanu madax kaa dhigano hadday boqortooyo aad doonaysa tahay boqor aanu kaa dhigno ku boqorno haddaad xoolo ku doonayso dan siyaasadeed uun xoolo doon ay kaa tahay inaanu xoolo ku siino oo kow xoolo badan kaa dhigno hablaha carbeed kuwa ugu qurux badan la kuu guurino wax kastoo dan dunaweed oo aad doonayso aan kuu yeella bay yidhaahdeen afaraqta minha ya abalwaliid buu ku yidhi ma dhammaysatay waliid aabihiyo haa buu ku yidhi dabeetana aayaad qur-aanuu nebigu ku akriyay calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo uu afka gacanta saaro oo iskaga tegey qurayshi waxay aragtay markaa in odaygiiba uu isa soo bedelay ilaa la yidhaahda isagii baabay noqotay in la yidhaha war bal cid loo dira isaga laftiisu iyuu inaga kaxaysane yani halkii soomaaligii lahaa la naxariisay annagaba nagu dari gaadhay dib uuna galay waxaa dhacday markaasi in uu isaga laftiisii markaa raadayn gaadhay qur-aankii qurayshi dawrna noocaasay isku daysay mar waxay isku dayeen inay yidhaahdaan aan taxaddi ku samayno bal aayada keen nebaan shahaganaysa una waxaad leedahay nebaan haye buurtan safa la yidhaahdo bal waa kaasay dahab nooga dhig ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay musnadu imaamu axmed xadiid ku yaala oo culamadu waliba ay sanadkiisa jayid ibnu kaiir ku tilmaamayo wuxuu yidhi inta loo yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay idhahdeen rabbigaa waxaad noo weydiisaa buurtan yaro safa la yidhaahdo dahab ina looga dhigo waanu ku rumaynaynaaye safa dahab ha noo noqoto qaala watafcaluun mayd rumaynaysaan unbuu yidhi haddii taa laydinkaa yeelo dahab laydinka dhigo haa bay idhaahdeen fadaca ilaahay buu u baryay buu yidhi dabeetana jibriil baa u yimi waxaa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu ku yidhi ilaahay wuu ku salaamaya waxaanu ku yidhi in shi'ta asbaxa lahum asafa dahaba haddaad doonayso safa dahab baa looga dhigaya laakin faman kafara bacda dalika minhu cadabtuhu cadaaban aliiman laa ucadibuhu axada min alcaalamiin laakiin cidda markaa ay dahab noqoto haddana gaalnimadii kusii sugnaata waa halaagayaa baa ilahay leeyi subxaana wa tacaala cadaab aanaan cid hore cadaabin ayaan cadaabaya haddaad doontana baabka toobad iyo raxmadaan u furaya oo yani waxba dahab laga dhigi maayo wixii toobad keena una islaama ayaan islaamnimadooda ka aqbalaya labada door baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam in safe ay dahab noqoto laakiin hadday ku diidaan markanba la halaago sidii ambiyadii horeba dhici jirtay iyo in aan safa dahabna laga dhigin la sugan wixii islaamayo baabu tawba oo markaasi u furaado aanu noqon mid laga xidho ibnu cabaas baa markaa wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay markaa baabu tawba waraxma dabeetana aayaad qur'aana baa soo degaysa ibnu cabaas sheegaya ilahay leeyahy wamaa manacna an nursila bilaayaati ila an kadaba biha alawaluun waaataynaa hamuuda naaqata mubsira aayaadkaasi ilaahay uu leeyay noomay diidin inaanu soo diro aayaadka ilaa iyo in kuwii horeba beeniyeen un mooyaane yani iyana intay beeniyeen un in markaasi halaagno oo reer hamuud iyo naaqadoodii baa lagu xogsiiyey qoladaaba mar haddaanay anficin haddana ilxaaxaasi markay ka dayn waayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ku yidhahdeen bal dayaxaa laba ka dhig bay ku yidhaahdeen dabeetana ilaahay baa subxaana wa tacaala laba ka dhigay oo labada buuroodee daclada magaalada ka saaran buu kala fulay sida saxiixu bukhaari iyo muslimka ku sugan saxaabiga la yidhaha cabdillahi ibnu mascuudna anaaba labadayda indhood saaray buu leeyay dayaxiyo inta ilaahay laba ka dhigay labadii buurood un korkooda ka kala muuqday waana ka ilaahay qur-aanka ku sugaya iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wan yaraw aayatan yucridu wayaqulu sixru mustamir dayaxii markay arkeenna waxay idhahdeen waadna sixirtay waa sixir indhaha iyagun baad sixirtay dayax laba kala noqdayna ma jira bay tilmaamayaan qurayshi waxay isku dayday hadba inay nooc uga hor yimaadaan diinta aanay si raacin marnaba nebiga calayhi salaatu wasalaam mujaadalaad iyo dood iyo waxa kan iyo maalan waxaa jirta
waxay culamada taariikh wariyaan مثلا waxay u yimaadeen baa leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri ya macshara quraysh innahu laysa ahad yu'badu min duni ilahi fi khayr war ma jiro ilaahay geyrkii wax la caabudo khayr leh ayuu ku yiri qurayshina waxay ogeeyeen inuu kristanku ay caabudaan maxay nabi ciise iyo warkan maxamed yiri markaas waxay yiraahdeen soodigi oran jiray ciise waa nabi iyo waa caynkana adooma wanaagsan buu kamid yahay taa macnaheedu waxa weeyaan been baad sheegto adiga le wax la caabudo khayr ku jira ma jiro nabiguna waxa uu tilmaamayay sida xadiidkuba tilmaamayo inuu laysa ahad yu'bad min duni illah fihi khayr asnaamtoodan iyo waxa uu ka waramaya kama waramaynin ciise kama hadlayniyo yani waxaan ay saman caabudayaan oo dhamina khayr ku jirin buu tilmaamay waa ka ilaahay soo dejiyay bay culimadu sheegaan aayadka quraanka ilaahay leeyahay walama duriba ibn maryam mathalan idha qawmuka minhu yasidun ciise ibn maryam markii yani tusaalaha ciise ibn maryam markii la keenay baa ilaahay subhanahu wa ta'ala qoomka way ka fogaanayaan madiinta ay ka sii cararayeen iyagoo uga jeeda nooca kan waxaan oo dhamid dood u baahay ma darabuhu laka illa jadala ba ilaahay dan kale kama ilahayn mooyaane dood uun inay doodaan mooyaane wax kale ay uga jeedeen ma jirin marka aynu eegna qisada tan ay culimada taariikh wariyaan waa labadan aayadood ee quraanka innakum wama ta'buduna min duni ilahi hasabu jahannam ayaa la yiri idinka iyo wama ta'budun baa la yiri ma lagu isticmaalo waxa غير caaqil ka aba meesha aayada quraan isticmaashay iyana ciise uu la kicina waxay yiraahdeen adiga ciise caynkan ka sheegay ala kulli xaal dooda quraysh aad bay u tiro badnayd ay kol badhan ka imanayaan mar ay yiraahdaan isku dayaan inay quraanka beeniyaan mar ay isku dayaan inay yiraahdaan dad baa ku sheegay ama cid kale ka baratay mar ay yiraahdaan yani kol badhan un bay isku dayeen inay kaga yimaadaan waxa soo dhamina waxay ahayd in uuna isku dayaan nabiga kaleey salaatu wasalaam inay cajsi galiyaan ama inay maagaan ama inay fogeeyaan laakiin nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa soo dhami kama joojin inuu diinta sideedii u wado oo aanu marnaba u joojinin qadayaadkooda kan laakiin iyana waxay tiro badiyeen oo aad u tiro badiyeen tacdiibkii iyo cadaabkii ay ku hayeen dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadkii mustadcafiinta aan waxba iska rabaynin markaas buu wuxuu nabigu idmay ama se ogolaaday hijraadkii in xabashada loo hijroodo hijradii koowaad mar labaad haddana in xabashada loo hijroodo iyadoo mujarrad la ilaalinayo dadka muslimiinta iyo istidcaafka lagu hayo إن شاء الله ما أنت أنا لك أكو والله أعلم